labada jifo ee wax ka dhinteen jifo kamid ah bay ahaayeen iyo dad looma ooyaan oo dadka ciyaal suuqa ay ku daafka ay haystaan dadka shiida oo ayagu aabala ah wixii dameer lahaa ama dad ahaa waxa ku dhacay dawladda waxa ka tagay aniga iyo dhiijiga gabaxadi markaan meesha tagnay waana soo dhaweeyay dadweynaha wixii wax garad ah waxaan ugu tagnay inama feedaqaawan oo sidii mudaharaadka lagu soo feedaqaawin jiray dadka loo soo feedaqaawiyay weer casna loo soo xidhay iyo dumar iyadoo dhaqankeena ahayn in dumarka la geeyo xabaalaha abaabulan oo warada lagu soo guray dadweynihii wax garadkii cuqaashi salaadiintii dadweynuhu soo dhaweeyay waanu nooga mahadnaqay dawladdu ilaahay madaxweyne halkay iska taagtay khasaaraha dhacay iyo sidii looga shaqeeyay sida annakoo ah ayaa waxa yimi madaxdii xisbiga wadani markay yimaadeen inamada ay soo abaabuleen oo kushin meelaha u taagnaan bidhaantooda arkayay waxa lagu amray inay aniga ishiidaan waalay soo digay odayaashii qayb kamid ah ay inama halka soo bareynaya iskaga tag gaarigaaga tag iskaga tag waa soo baxay markiiba shiidku uu bilaabmay askartii la socotay waxaan ku amray inaanay xabad ku ridin dadka oo dhaqan bini aadam oo xabaal dusheed laga mudaharaadayo waa maalintii koobaad horta dadweynaha waxaan u sheegayaa halka ceebta ka dhacday ee aan qaybsanayn dadweynihii meesha joogay wixii wax garad ahaan arkayeen waxa iskala ciro iyo cid la talisa ama xurtada ku haysata waa dhaqankoodii halka markay timaano ko iska soo baxnay shiidkaan waxba kuma noqon gaari baa ay ku dhaceen laba dhagax muraayada dambe jabtay waa mas'ala basiid askartay dadka waxa ma yeelin dadweynuhu waan arkayay inay iscaabiyaan oo ayagu is celinayaan odayaashu la dagaalamayaan wixii wax garad ah halka hadaba waxa su'aashiis weydiinta la isdul taagay waxa weeye yaa dadka shiiday maxay ahaayeen identity-goodu muxuu ah duwan baanayo inta la eego dadka waan kala wada garanaya labada jifo ee wax ka dhinteen jifo kamid ah bay ahaayeen iyo dad looma ooyaan oo dadka ciyaal suuqa ay ku daafka ay haystaan dadka shiida oo ayagu aabala ah wixii dameer lahaa ama dad ahaa waxa ku dhacay cunsur carabka lama dhowraba jifada cirro ayay ahaayeen kuwa hawsha bilaabay reerka kale waxba saari maayo waxa soo raacayna waxa weeyaan dadaan identity-ga dadka dhintay iyo ehliyadooda toona ahayn oo ayagu urursadeen oo dadka ugu talagaleen nabadgelyada inay ku burburiyaan ee qaarna la hayo xabsiyada lagu hayo qaarna ay suuqyada ku jiraan oo ilaa xad loogu talagalay inay dad ku laayaan sharciyada halka waxaan leeyahay sida cirra damay si uu ku fuulayo ma kursi si madaxweyne ku noqonayna ma sida cirra damay waxa weeye dalkan in umalada wax ka dhaco la isdilo oo yaa isdilaya hadduu ku socdo madaxweynaha iyo maalinkan maanta dawladda maba gaarayo oo arintiisu waa wala suqaar iyo zirooge inta ku nool baa wala suqaar iyo zirooge istilaysidee arintiisu waa maamuus iyo kaalinta ilmo shukri inta ku nool baa istilaysa oo isku wada waana bilaabantay aniga waa markii saddexaad oo ana labada goor ka hadlina hore markii horena inuu abaabulay oo xafadooda u badan habeenkii buugii waa ogeedeen kamana hadlin joogna kama oran maalintan 12kii ee la mudaharaadayna asaga iyo xirsiyo hor kacaya ayay guriga ku soo mudaharaadeen askartii la joogtay caabiday shiidayeen shiitamayeen guriga way yaqaaneen ku talagal bay ahayd abaabul bay ahayd tan waa tii saddexaad sida markay u dhacdo war cirra wala suqaar iyo sirooga cid ku nool waa aniga cid kaleba ma aha halku ka gaadhay madaxtooyada dadweynaha weydiiyay Soomaaliland warkaarinta ilmo shukri iyo agoontii ilmo Suldaan Maxamed hodheerkii maamuus
oo abahoodu ga dhintay oo jeelkii ma dheero kala imka dadka lagu xareeyo laguna abaabulo halkeeba ya isku dilaya inta ya ku dhimanaya ku dhaawacmaya iskaari mayaan xiriir cid cadaawada la raba manuu garan dariiqa u marayo waxana la yiri ninku haduu anbado xaqu anbadi gurigoodu buu moodaya dariiqii madaxtooyada oo u mari lahaa cirra uu ka anbadan dariiq khaldan buu maray dariiq jafadiisa isku dilayso isdil doonto oo nin walba wuxuu ahaa noqon doono ayuu gaaray calanka isu keenhoday calanka hadaynu doono in ku heshiino sida cirra wado dee hadaynu inaku isu ciil qabno taariikh hore la ciil qabo war calanka aan yar duuduubano banaanka ay isugu baxano xadaaradan iyo wanaagan in gaarnay beenta ka sheegnay muraayadahana aan ka dhex baxano yaan inaga burburin dibadda isugu baxano markaynu soo kala ciil beelo bal hada wixii soo haraa ay isku soo noqdeen waa sida cirra wado taladeeda aniga taladeeda waxa weeye taa aan dawladda ku qaadsiiyay waxaan dowl loogu lahayn ay taladeeda ahayd imika haatanna waxaan u arkaa in dalkan badbaado u baahan yahay wixii aan dawladda ka hor joognay ee awoodeeda ahayd ee sharcigeeda ahayd ee sharcigii faraa lagu qaadanayay ee aanu naseexo iyo jiirwaa tuug lahayna aanu ka daayanahay dib u oranayn nin walba marna taagtaa marna tamartaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh